fanaanka Saalax Carab oo muddo dhowr maalmood ku xidhnaa xabsiga dhexe ee magaalada Hargeysa ayaa xorriyadiisii dib loogu celiyay xaddii maanta kadib markii ay caddaatay inuu yahay muwaadin Yamani ah laakiin luqadda Soomaaliga ku heesa. Fanaanku ay garab taagan yihiin mas'uuliyiin ka socda xisbiyada mucaaradka ee wadani iyo ucid oo qayb weyn ka qaatay sii deynta fanaanka ayaa ka dareen celiyay xorriyadiisa loo celiyay. والله الحمد لله إلهي بقى معد سكالة waxaan marka koowaad u baahan celinaya dhammaan bulshooyinka reer Soomaaliland ugu horeeyaan dawladda iyo xisbiyada mucaaradkuba waxaan kala mahad celinayaa jaaliyadeeda Yamanta waxaan kala mahad celinayaa xisbiga ucid iyo xisbiga wadani gudoomiye Faysal Cali Waraabo amiirka iyaga Anwar gudoomiyaha jaaliyada Xadaara maamooyinka adeerkay Daha Salaal oo gudoomiyaha jaaliyada madaxweynaha Soomaaliland iyo taliyaha booliska taliyaha CID-da بعد الصحافة ده أدبر نقوم هاد علنا لكن فنانين أبال دقمة حيان لي وما سنتين لكن بالشوين ترير سومالي لان أدي مامل كبا سي شرف الله نقوم هاد علنا وينكم هاسين جزاك فنانيتي كل حد نامه والله فنانيتي إلى حد رويت شوكان يقرأ واحد تشيني إن شاء الله إن السود دايو أنا سود عينا دو إلى إن شاء الله xogayaha warfaafinta ee xisbiga mucaaradka ucid Yuusuf Kayse iyo gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka wadani Maxamed Sidiiq Dhamme ayaa iyaguna ka hadlay sii deynta fanaanka Saalax Carab. Saalax Carab waa fanaan reer Yamaniya runtii in la ixtiraamay dastuurkii qawaaniintii waan ka mahad celinaynaa anagu mar walba waxaanu jecelahay calanka sharafta leh inaan cidna lagu hoostulmiin hadduu muwaadin yahay iyo haddii aanu muwaadin ahaynba dadaal dheerna waxaanu ka galnay Saalax Carab inuu xorriyadiisa xaq u leeyahay asaasiga u helo Saalaxna waxa lagu haystay inuu xamar ka heesay Hargeysana ka heesay Hargeysa xamarna isagu maadaama uu yahay nin Yamaniya waa isugu mid marka inay xeer ilaalintu garwaaqsatay oo ay shuruucdii iyo eegaan sharcigii waan uga mahad celinaynaa bilayskana waan u mahad celinaynaa marka horeba wuxuu ku xidhnaa sifo sharci darro ah sida xeer ilaalintu nala aqoonsatay ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa gudoomiyaha xisbiga ucid oo dadaal weyn ka galay waxa kale oo u mahad celinayaa amiirka amiir Anwar Saciid oo isna aan hariya habeen ka seexan soo deyntiisa waxa kaloon qaybaha dawladda kala duwan oo ay ugu horeeyaan xeer ilaalintu gudoomiye xeer ilaalinta gobolka Mawlid Cabdi Ibrahim ninka la yiraahdo Cabditax 5 daqiiqo taliyaha damabaarista hay'adda baarista CID-da Faysal taliyaha saldhigga dhexe komishinka xuquuqul insaanka oo isna door weyn waa markii koowaad ee mucaaradka iyo komishinka xuquuqul insaanku ay maaragtay ka wada shaqeeyaan hawlaha waxaan rajaynayaa inay nagala shaqeyn doonaan muwaadiniinta kale ee Soomaaliland ee sifaha xaaraanta ku xidhan jeelasha ku jira laba fanaan baa la socday Saalax Carab oo iyagu muwaadiniin ah isagu muwaadin Soomaaliland oo ahayn sifo sharci ku soo galay dalka sifo sharci ku joogay laakiin muwaadiniintii kale ee Soomaaliland eedoodii xirlaantu way diyaarisay waana la gudbiyay garsoorina waa lagu qoray galkii waxaanu mudeeyay biri ma haysaa dambe iyagana marxaatibeena waa ahaan doonaa eedooda waa inaynu dhageysan doonaa. Fanaanka ayaa la xidhay kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho ee xarunta dalka Soomaaliya halkaas oo uu heeso ka soo qaaday iyadoo ay weheliyaan fanaaniin kale waxaa xabsiga laga sii daayay maanta oo axada iyadoo labadii fanaanay kale ee weheliyayna xabsiga lagu reebay maaha fanaankii ugu horreeyay la xidho kadib markii uu ka soo laabtay magaalada Muqdisho oo uu heeso ku soo qaaday. Nuruddin Culi Joog Universal TV Hargeysa.